الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka Banaadir Harduqa magaalada Muqdisho gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir dhinaca maaliyadda gudoomiye ku-xigeenka arrimaha gobolka Banaadir arrimaha bulshada dhammaan cuqaasha waxgaradka safiirka Soomaaliya u fadhiya Washington isna waa salaamiya waxaan dhammaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii waxaan maanta uga mahad celinayaa in maalintan qaaliga ah 26 Juun oo ah markii meel ugu horeysay gobolada waqooyi ee xorriyada ka qaateen gumaysiga Ingiriiska inaan maanta ku sugannahay degmada Daynile kulay aniga taariikh gaar ah ay noqon doonto hadii Ilaahay waan kulay taariikh xasuusan doono ay noqon doonto hadii Ilaahay waxaan kulay idinkaga mahad celinayaa sida kalsoonida leh aan noo soo dhaweyseen aniga Daynile maanta iguma horeyso anigu waxaan ka tirsanaa jiray guddiga difaaca golaha shacabka intaan wasiirnimada u ii magacaabay wasaaraha marka dhowr jeer ayaan Daynile nimid anagoo fiirinayna hab meesha ugu habboon xerooyinka ciidamada laga samayn karo marka si fiican ayaan mataqaanaa Daynile uga warqabaa insha allahu tacaala marka maanta laakiin waa markii ugu horreysay shacabka dadweynaha ku nool degmada Daynile aan soo hor istaago runtii waxaan rabaa marka hore inaan salaan diiran idinka gaarsiiyo markaa inta imaanayaan waxaan wacay salaan diiran oo ii soo gudbiyay inaan idinka gaarsiiyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliyeed uu yidhi dadkii Daynile lagu salaan mataqaanaa shaqo adag ayuu ku maqan yahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaa u fududeeyo dalkan dib u yeeglisiisa wax adag weeye dhammaanna waajibaad naga saaran yahay fariinta dowladnimada in la daadihiyo waa waxa dowladda federaalka anigu aaminsannahay dowladda federaalku in arrimaha hoose ay degmooyinku qabsadaan oo mataqaanaa waxyaabaha waaweyn oo mataqaanaa arrimaha dibadda iyo lacagta iyo immigrationka iyo difaaca dalka afartaa shay oo dastuurka qodobka 10 oo dowladda federaalka siinaayo oo gooni u siinaayo inteeda kale badanaa inay degmooyinka iyo gobolka inuu ka shaqeeyo horumar ka shaqeeyo waxaan aaminsanahay weeye waxaan kaloo ku faraxsanahay maanta halkaan ka caddeynaa xukuumadda inay arrintan dabageli doonto wasaaradda howlaha guud aniga xukuumadda ka socona xukuumadda haddaan idila joogo qof xukuumadda kala joogo xukuumadda idila joogto weeye in dalabkan laamigan insha allahu tacaala la gaarsiiyey inaan miiska saari doono kaabinetka la geyn doono insha allahu tacaala degmada iyo gobolka lagala shaqayn doono sidii loo suurtagelin lahaa hadii Ilaahay laamigan hadii Ilaahay insha allahu tacaala intaas ka bacdi anigu magaalada Muqdisho aad baan u jeclahay waa magaalada ku dhashay anoo yara mataqaana aad baan macnaha ustaad digfeer baan ku dhashay magaca loo baxshay anigu waxaan aaminsanahay federaalku aaminsan laakiin magaalada Muqdisho waa magaalada xuduntii Soomaaliya weeye waa muraayadii iyo iftiinkii ummadda Soomaaliyeed ka fiirinaysa weeye sidoo quraanku leeyahay hadii Ilaahay wax ku siiyo waxba laga rajaynayaa shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir iyo qaasada magaalada Muqdisho waxa in saaran waajibaad weyn oo ay Soomaali weyn si loo ilaalin lahaa idinka ay waajibaad ka saaran yahay inaan mar walba ogaatiin waxa waaye nasiibkaad u yeelateen ma taqaanaa dalkan dal waxa weeye soo noqonayo weeye insha Allah tacaala hadaf dheer iyo si shaqo loo abuuri lahaa hadda waxaan ka imaado Jarmalka ayaan ka imid dalkeena waqti shaqalaan badan ma ka jirto boqolkiiba 75 dhalinyaro dalkeena weeye 72 boqolkiiba dalka shaqo la'aan weeye sidee shaqo loo abuuri karaa haddaan dadka xirfad lahayn marka waxaan kala hadlaynaa in xirfad loo abuuro haddaan xirfad la helayn qofka markuu lacag haysto investment leeyahay oo rabo inuu meel maal gashtan rabo wuxuu rabaa inuu yiraahdo meeshaas ma leedahay capitalka way lacagtu hayaa ma leedahay shaqaale xirfad oo shaqaalihii u heli lahaa ma rabaa adduunka competition weeye nina inta lacagta soo qaado ma maalgashanayo Daynile ma maalgashanayo mataqaanaa kaalkacyo anyway hadduusan ogeyn in shaqaalaha meesha joogay shaqadii qaban kara yihiin oo xirfadii ay leeyihiin oo mataqaanaa markaas ayuu lacagtii maalkiisa gashanaya marka waxaan laga rabaa waxa weeye inaan abuurno waana hadafka ra'iisul wasaaraha weeye oo nagu amray in dalkan loo abuuro iskuulo farsamo oo dadka mataqaanaa lagu tababaro si mataqaanaa ay shaqaalo xirfad laan u helno insha allahu tacaala marka runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo gudoomiyaha gobolka Harduqa magaalada Muqdisho gudoomiye ku-xigeenadiisa runtii gobolka Banaadir howlo weyn ayaa ka socda sida guddiga wuxuu nagala mid ahaa mataqaanaa qabanqaabada mataqaanaa xuska maalmaha xorriyadda dadaalka ballaaran ee gobolka muujiyey bilicda magaalada soo dhajiyay marka hadda soo galaynay calaamadan ka arkay mataqaanaa Daynile markaan soo galaynay wadaniyada idinka muuqata waxa ku faanaysiin weeye insha allahu tacaala dalkan waxa way dhammaantay waxaa rabaa shacabka Soomaaliyeed anigu wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay ugu jirtay bulshada in la abaabulo oo la jiheeyo oo meel u socotaan waxa way dalka markuu bulshadiisu iyo dadkiisu ay mataqaanaa ay si wada jir wada shaqeeyaan meel la wada gaaraya inaan lagu hays qabsanno maaha waa inaan mataqaanaa qofkii wax qaban karo wax loola qabto weeye
si insha Allah tacaala aan hore u soconno marka waxaan rabaa inaan mataqaanaa maanta waa maalin taariikhi ah 26 juun macnaha maalin fudud maahan insha Allah maalmaha xurriyadda lagu jiro waa markaan xasuusan lahayn waxa weeye geesiyaashii naftooda u horay dalkan maanta anaga ku raaxaysanayno dalkan wax fudud laguma soo marin mar walba marka inaan madaxeena gelino waxa loo baahan yahay sidii dalkan aan uga shaqayn lahayn horumarkiisa uga shaqayn lahayn sidii aan dalkan isku soo dhawaashiisa uga shaqayn lahayn sidii aan dalkan u horumarin ka shaqayn loo baahan yahay insha Allah tacaala idinka qofna sugina qof ceelno mar idinka qofka Soomaaliyeed mas'uul ayaa ka saaran dalka inaad u qaban lahayd inaad u qabatid waxaad u qaban kartiin oo qabatid insha Allah tacaala aad bay farxad ii gelinaysaa maanta mar labaad inaad sir sharafta noo soo dhaweyseen aad iyo aad mataqaana kulli xusuus gaar igu reebi doonta aniga waxaan kaloo idinka codsanayaa dardaarankaas dalxayda kala daarmay waajibaadka weyn ee laga saaran yahay inaan kulliga kor fiirino inaan Soomaalinimo inoogu ekaato fariintaas mar bar wasaarana faraa inaan ugu shaqeyno mataqaana dalka inaan si wada jira oo mataqaana aan loo eegayno mataqaana deegaan loo wada eegaa si wada jira in dalkan si wada jira loo horumariyo insha Allah tacaala qof kasta Soomaaliya meeshaan fadhiyo fariinta qaadid in mataqaana Soomaaliya dibgelinteeda ay qof walba waajib ka leeyahay aad baa u mahadsantihiin